السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالية وأنا سلام meel kasta adduunka joogtaan khayr iyo cabshir iyo bashbash ayaa nii rajeynaya Soomaali weyne. Ramadaan kariim meel kasta adduunka joogtaan nabad iyo nabadgelyo iyo caafimaad aan nii rajeynaya. Ramadaan wanaagsan Soomaaliya maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweynaheena Soomaaliya Farmaajo. ilaahay waxaan ka baryayaa nabadgelyo khayr qabta Soomaaliya inuu ilaahay ka dhaliyo, cadowgana Allah naga qabto, wixii Soomaaliya xaasid ku ah ilaahay ha naga qabto. Soomaaliya waxaan rabaa laba sano loogu daray, waa la soconaa. Ramadaan koow markii isniin talaadadii loogu daray 2 sano. maasha Allah, hadduu nin xun ahaan lahaa 2 sano looguma dareen. xildhibaanka inta gacanta taagtay oo dooratay dhaheen ha loogu daro meeqay hayeen 149 haddaan qaldaneen 149 haddaan qaldaneen ayaa gacanta taagtay oo tiri ha loogu daro waqti 2 sano kale. hadduu nin xun ahaan lahaa xildhibaanadaas ninkii aqli leh xildhibaanada gacmaha ma taageen. hadduu nin xun ahaan lahaa, madaxweyne xun ahaan lahaa, maxay ahayd inta military soo dhisay ma taageerteen. waa la socotaan Soomaali weynay, waa la socotaan inta jeel adduunka oo dhan ku yaalo wuxuu dad ka soo daayay, waa la socotaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi runta ku hadlaa. qabiil in qofka geeska lagu geliyo waa laga fiican yahay. qofkii Soomaaliya wanaagsan wuxuu yahay sheeg xaqiisa, sheeg wuxuu yahay sheeg. qabiilnimada halkaa dhiga, qabiil iyo qabyaalada halkaa dhiga. Soomaaliya qabyaalad iyo qabiil hadday wax tarayso, hadday macno leedahay, waa ta 30 sano halkaa dhigtay, waa ta 30 sano adduunka saanii berbeerinayso, waa ta 30 sano caruurteenina laga qaatay, hooyooyinka saa u ooynayso, waa ta 30 sano aan noqonay tuko geed waayay. adduunka saa lagu mermeeriyaa na la nacay, adduunkii oo dhan baana laga nacay. haddaa aqli leedihiin ninka fiican ku dhega ha sii daynine. Soomaali dhoohaney qofka fiican ku dhega. horta xildhibaanadaas aad baan mahad ugu celinayaa. xildhibaanadaas maxay ahayd 149 waxaan leeyahay waddankiina badbaadiseen, oo dadkiiniba badbaadiseen, oo ummadiiniba badbaadiseen, oo hooyooyinkii iyo odayaashii iyo waayeelkii dhibaatada qabay baa badbaadiseen. khayr Allah na siiyo. bisha Ramadaan waa ducaysateen. maasha Allah Soomaali dad baa rabaa, niman baa jira madaxda isku soo sharaxay oo dagaal iyo musuq maasuq iyo xoolo dhac iyo badda dhac iyo dhac mooyaane aan wanaag shacabka wanaag u haynin, oo waddanka wanaag u haynin. wixii rugmanaya maxaa kaa galay? aniga jeebka aan buuxsaday, caruurtaydina dibadda jiraane wixii ba'aya maxaa iga galay? niman qaarkood ayaa sidaa ah. marka Soomaali maasha Allah waa la gartay intii xun iyo intii san. qabyaaladii way dhammaatay. waxaan leeyahay Soomaali weynay, ninka wanaagsan oo wadaniga dhabta ah ku dhinta. walaal waxba nigama gelin. ina adeerka hadduu madaxweyne noqdana waxba kuma qabanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi runta ku dadaala, oo ninka dadka badbaadinayo, oo ninka dalka badbaadinayo, oo ninka wax kasta badda badbaadinayo ku dhinta oo kaa doorta. waa ogtahay maxamed cabdilaahi Farmaajo inuu hawadeeni soo celiyey, inuu baddeeni soo celiyey, inuu dadkeeni adduunka oo dhan saa loogu xirxiray. dadkeeni masaakiinta wiilasheeni oo jeelalka adduunka saa loogu xirxiray uu soo wada daayay. waa la socotaa
qabyaalada daaya qabyaalada joojiya aniga maxamed cabdilaahi farmaajo waxba ima siinay aniga madaxweynuu yahay maxaan u hadlayaa shacabkayga soomaaliyeed baan u hadlayaa dadkaba igama yaqaan inaan u hadlay in kaleba ima yaqaan laakiin yaan u hadlayaa shacabka soomaaliyeed baan u hadlaya waddanka badbaadadiisaan u hadlaya oo badda badbaadadiisaan u hadlaya oo wanaagga shacabkeena soomaaliyeed baan u hadlayaa ninkii aqli leh oo aqliga saaxiibka la ah wuu garan meeshaan ka hadlayo kii kalena wuxuu dhihi de walba wuxuu ahaa qabyaalaysti qabyaalada halkaan iska dhigino maxaa noo dana aan dhahno soomaaliyeed waa ogtiin labadii madaxweyne soomaaliya maxay ka horeeyey farmaajo labadii madaxweyne ka horeeyey waxay sameeyeen waa la socotaan haddaydi qabyaalad lafta haddaynay kaga jirin waxay sameeyeen waa la socotaan iyo kii ka horeeyey waa la socotaan mid badii buu gatay midna gabdhaheeni buu gatay baktina wuu u sujuuday gabdhaheeni 10 kun oo gabdhaheenu sacuudiga ka gatay waa la socotaan haddaydi qabyaalad nahayna hadday meesha qabyaalad ku jirin waa la socotaan 10 kun oo gabdhaheeni sacuudiga inuu ka gaday ilaa hadda meelay jiraan la garanaynin waa la socotaan midna inuu baddeeni gatay waa la socotaan baddeeni inuu Kenya saxiix ugu dhuftay waa la socotaan haddaydi qabyaalad nahaynin Soomaaliya runtaan ka hadalno Soomaaliya ninka xun aan iska qabano Soomaaliya meesha walaal iyo qabyaalad iyo adeerkay yaa lagu dhimanayna xaq iyo runta aan ku dhimano kana adeerkay yaanu ku dhimanayna waddanka aan badbaadino kana adeerkay yaanu ku dhimanayna ummadda aan badbaadino kana ila dhashay oo adeerkay yaanu ku dhimanayna baddeena iyo shacabkeena iyo dalkeena aan badbaadino Soomaaliya si sheegareeya laagta subscribe-ka saara oo laagta badiya inta nabadda jecel bal anaga laagtiina inta la eg tahay inta nabadda jecel inta waddankeena rabta inay nabad ka dhacdo inta waddankeena rabta inay horumar gaadho adoonkii baanu ka harnay 30 sano baan adoonkii ka harnay waagii hore Soomaaliya horumarkii gaadhay waa la socotaan haddana meesha taaganta waa la socotaan hadda markuu ilaahay وحوجان أفتينك سان وجوب بحي بهدنا رتينا دب نوع لسان دب رتنا رتينا نوع لسان افتينك يا هذا نوع بحي أنت نبض جعل لاكتنا بلانيجا أنت جاري شيء لاكت سبكرايبك هلا بديو هلا صارو نبض صومالي ويداش صدق سنة أدونك صار لوجوري inta hooyooyin caruurta laga qaadanaya baleega waddanka hadduu nabad ahaan la mar hore soo noqon lahayo madaxdan la hadlaya madaxda waddanka u badbaadiya xumaatada waddanka ka daaya dhaca ka daa mid kasta wuxuu leeyahay allah hal mar kursiga aan ku fariisto aan jeebka buuxsaday allah aan ku fariisto turki guryo aan ka gadhistay iyo qadar iyo meelahaas guryo aan ka gatay caruurtoodii oo dhan dibadda u jirta mid caruurtiisa kii Soomaaliya joogta male wuxuu u imaanay inuu jeebka buuxsado Soomaaliya ma ka saraali ka tahay nin rabo inuu waddanka dhaco maraali baa ka tahay nin rabo inuu badda gato maraali baa ka tahay nin rabo inuu maxay gabdhihii hore 10 waaba la gaday haddana rabo gabdhaheena kale inuu gado maraali baa ka tahay Soomaali weyne calanka buluuga ka hadlaya maraali baa ka tihiin رمضان كريم خير يا أبشري بش باني رجعيني سدا يقول الدم وحيصة بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت نبدا جعل بلاكت انت مرتبة على عرفو لاك سبسكرايب كشيء انت قادو انا عرفو بنسامية يا نبدا جعل يا حماطة جعل نسام بني صاري